السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لودا ولا ليال ما أنت واحد جانا لومو فرنسي اللي بليزي تليزي نمو فاندي كلمة دي فرنسيس كلو استعمال كبدين هاي قيبتي اللبيو اللباتنات كلمة دي غهر سندقنا ما أنت وا لا تريستيس أو أبصومالي مروجو صومالي ومحل تريستيس ومروجو تسال أي إنجلينا تسال ما أنت إنجلينا سو قادنا وا Ali ne peut pas cacher sa tristesse. Ali ne peut pas cacher sa tristesse. Ali Somalihan murugadiisa ma qarin karo. Kelmadda labaad ee dhiganayno maanta waa casser. Waa le verbe casser oo ah af Soomaali jebin. Le verbe casser oo af Soomaali ah jebin ayaan dhiganaynaa. Tusaale ayaan gelinaynaa. Example tusaale bay ka dhigan tahay. Alan c'est casser le bras. Alan s'est cassé le bras. Alan s'est cassé le bras. Alan ayaa gacanta ka jabay bay ka dhigan tahay af Soomaali. Alan ayaa gacanta ka jabay bay ka dhigan tahay af Soomaali. Kelmadda saddexaad ee dhigana maanta waa surpris ama surprise. Surpris ama surprise oo ah af Soomaali lama filaan ama yaab. waxaad ka yaabteen wax lama filaan lagaaga dhigay. Example mon ami m'a surpris. Mon ami m'a surpris. saaxiibkay baa iga yaabiyay ama iga lama filaan iga dhigay. Prendre soin. Prendre soin maxaa af Soomaali waa daryeelid. Prendre soin maxaa af Soomaali waa maxay waa daryeelid. Example baan soo qaadanayna. Example kan soo qaadanayna ah il prend soin de son vélo. Il prend soin de son vélo. Baaskiilkiisa ayuu daryeelaa. Il prend soin de son vélo. Baaskiilkiisa ayuu daryeelaa. Kelmadda shanaad ee ku xigta waa un stylo. Waa un stylo oo ah af Soomaali qalin. Stylo waa maxay waa qalin. tusaale ahaan gelinaynaa. Puis-je écrire votre stylo? Puis-je écrire votre stylo? Puis-je écrire votre stylo? qalinkaaga maan ku qori karaa? qalinkaaga maan ku qori karaa bay ka dhigan tahay. Kelmadda lixaad aan dhiganayna maanta waa souvent. waa maxay waa souvent. kelmadda lixaad aan dhiganayna maanta waa maxay waa souvent oo ah af Soomaali inta badan ama badanaa bay ka dhigan tahay af Soomaali. Example tusaalahan gelinayna maanta waa maxay nous allons souvent au marché. Nous allons souvent au marché. inta badan waxaan aadnaa suuqa. Soomaaliyeenta waa soo socotaa. inta badan waxaan aadnaa suuqa. inta badan waxaan aadnaa suuqa ama suuqaan tagna inta badan. kelmadda ku xigta se comporter. toddobaad waa maxay waa se comporter. af Soomaali waa maxay se comporter waa dhaqmid. sida qofku u dhaqmaysid ama dhaqan ahaan ka dhigan tahay u dhaqmaysid weyn. Il se comporte wuxuu u dhaqmaa way ka dhigan tahay Soomaali. Il se comporte étrangement. Il se comporte étrangement waxay ka dhigan tahay si yaab leh ayuu u dhaqmaa. étrangement maxay waa si la yaab leh ayuu u dhaqmaa bay ka dhigan tahay. kelmadda sideedaad aan dhiganayna waa maxay félicitation. kelmadda sideedaad aan dhiganayna waa maxay af Soomaali félicitation oo af Soomaali ka dhigan hambaliyo. félicitation ka dhigan af Soomaali hambaliyo. Félicitations pour votre nouveau travail. Félicitations pour votre nouveau travail. hambaliyo shaqadaada cusub. hambaliyo shaqadaada cusub. kelmadda sagaalaad ku xigta son bay ka dhigan tahay. son waa maxay waa la'aan. la'aan bay ka dhigan tahay Soomaali. son waa maxay waa la'aan. Exemple tusaale ahaan je bois mon thé sans sucre. Je bois mon thé sans sucre. waxaan cabaa shaahayga bilaa sonkor. Je bois mon thé sans sucre. waxaan cabaa shaahayga sonkor la'aan.
كلمة تمنى كل حكتها وحي منطقة les parents وأف صومالي والدك أما والدته les parents أما والدته exemple بانجلينا tes parents والدته sont gentils وفي عيهن أما ونكسيهن tes parents sont gentils وفي عيهن والدك وفي عيهن إن شاء الله. Merci beaucoup de nous avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. يقرأ وتكون ما سنتهين انت لسعتين عداوشة فيديو جن si cette vidéo vous a été utile هذا فيديو واحترني لها أما ونفعنا. N'oubliez surtout pas à liker إن اللايك سيرتين كومنتي أتفاعلاتك بحيثين et partager à صاحبنا لو ذاكتين إن شاء الله. الكلام كله